doonaysaa inuu videogaaga iska bedelo sidan iskuna bedelo sidan. kusoo dhawaada mar kale waa barnaamijkeennii hagaajinta maqalka iyo muuqaalka. barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ama aan kaga hadli doonaa habka aad u sixi lahayd leerarkaaga. khubarada ama dadka ku xeel dheer duubitaan filimada iyo videoga waxa ay inta badan yiraahdaan waxa jirto oo ay ku saxmaysaa in qofka uu leerarkiisa dhigo ama uu u habeeyo habka soo socda oo ah 3 jiho in la dhigo leerarka. haddaba leerka ugu horeeya oo la yiraahdo key light-ka oo kan ugu weyn ah wuxuu noqon karaa softbox oo kan oo kale ah, ama wuxuu noqon karaa muraayada ama daaqadaada oo iftiin ka soo galo oo markaa ku xirsid maro cad. waxaa inta badan qurux badan in uu nalka markuu ku dhacay uu yahay mid khafiif ah. waxaa kaloo jirto wax la yiraahdo fill light oo ah mid kale oo dhinaca ka soo horjeeda la dhigo. fill light wuxuu noqon karaa nal khafiif ah ama la gaabiyey. waxaa kaloo jiro mid la yiraahdo hair light ama rim light, adiga iyo derbiga ama waxa ka dambeeya dhaxgala. hadda kan anaga noo yaalo waxaan ka dhignay blue maadaama xageena dambe uu leer blue ka daaran yahay ayaan waxaan isnirey haloo maleey leerkaas blue ah inuu xagan dambe naga ifinayo. waxaa kaloo jiro marka inta lagu sii dari karaa waxa la yiraahdo ambient light ama waxa la yiraahdo practical light. waxayna ka dhigan tahay waxyaabaha caadiga u isticmaasha haddii xafiis tahay leerarka waxa lagu akhristaa ama leerar kale oo markaa iyagu kalara kala leh. hadduu guri yahayna inta badan leerarka miiska la saaray iyo waxyaabahaas oo practical light-ka ah ayaa ayagana la isticmaalaa. haddaan aanu isla eegno videogan, haddaan dimino kuwaan oo dhan oo aan fiirino key light-ka keliya inaan isticmaali karo in kaleeto, ani waxaan aaminsanahay qofka hadduu key light keliya haysta inuu ku filan tahay 70% uu lightingiisa uu sax yahay. haddaan isla tijaabinaynaa, waxaan sameynaynaa kan aan iska diminaynaa oo hair light-ka ah. kan aan iska diminaynaa. hadda waxaan isticmaalaynaa key light-ka oo ah kii ugu weynaa oo keliyata. kan oo kale 70% hadda lighting-igu saxan yahay. saan haddaan video ku duubo waa okay. haddaba tartiib waxaan ugu daraynaa kuwii kale. waxaan ka bilaabaynaa hair light. hadda waxaan ku darnay hair light-ki oo arkaysaan in dhinacan naga hayo. saanna waxay noqotay ka yara qurux badnaatay sidii hore. waxaan ku daraynaa marka hadda kuwii dambe oo ahaa backlight-ki. haddaba barnaamijkeena maanta waxaan kusoo gabagabeynaynaa intaas. waxaan filayaa in aad isla fahanay sida qofka markaa uu u hagaajisan lahaa leerarkiisa. waxaad ogaataa in leerarku ama habka loo dhigo ama habka loo isticmaalo ay yihiin shay muhiim ah. kaamarad kasta oo qaali ah haddaa haysatid uu leerka kaa xum yahay, sawiradaada ama videogaaga wuxuu ekaanaya ama jir. intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale lamid ah waxaan idin leeyahay goodbye.